friend and friendship. Let me summarize and teach you the differences between these two words. waxaan rabaa inaan ku warbarqida u dhaxeeya labadan erayga friend oo macnihiisu yahay saaxiib, erayga friendship oo macnihiisu yahay saaxiibtinimadii. erayga friend waa magac oo loo yaqaano common noun, maadaama saaxiibka meel walba laga heli karo hana qof caadi la taaban karo. kani marka magaca guud baa loo yaqaano oo ah common noun, magaca guud. tusaale, adigu saaxiibkay ayaa tahay, you are my friend. waxay noogu xiga eraygan kale oo loo yaqaano friendship. kani waa saaxiibtinimadii, kani waa magac uu ka yahay isna abstract noun baa la yidhaha, magaca daahsoon amaba qarsoon, maadaama saaxiibtinimadu aysan ahayn wax la taaban karo lana arki karo, keliya waa wax la dareemi karo inuu jiro wax loo yaqaano saaxiibtinimo. ka marka waxaa loo yaqaanaa abstract noun oo ah magaca daahsoon amaba qarsoon. tusaale, waa necbahay saaxiibtinimada noocan, I hate such friendship. qof kastoo daneynaya barashada luqadda Ingiriiska si qaas ah ayaan kugu bari doonaa. group kuma dhaxgayn doono, adigaan si qaas ah kugu bari doonaa. cashar joogtana waan ku siin doonaa kala duwan, mar walbana waan ka dhageysan doonaa casharka. waxaad igala soo xiriiri kartaa lambarkan waa WhatsApp-kayga ku isticmaalo, ama sida caadiga waad ii soo wici kartaa. si qaas ah kugu bari doonaa luqadda.